Mukhtaar Robo waxa uu la soo xiriiray idaacadda VOA waxaana uu wareysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya la yeeshay Haaruun Macruuf. maalintii shalay waxaan idin soo gudbinay qaybtii koobaad ee wareysigaasi. qaybta labaad ee wareysiga ayaa waxay ku bilaabatay sida tan. wareysigani waa wareysigii ugu horreeyay bixiso tan iyo intii aad ka soo baxday shabaab, tan iyo intii lagu xiray muddo aad u dheer weeyaan. waxaan wax yar rabaa inaad bal dib u celiso dadweynaha maalintii lagu soo xiray iyo sidii lagu soo xiray iyo ciddii ku soo xirtay. walaal maalintii lagu soo xiray waxay ahayd 2018 bishii 12 13 oo khamiis ay tahay ay ahayd. ka hor intaan la soo xirin ninka joogay Amisom secretary u joogo Etoobiyaanka ahaa ayaa wuxuu sameeyay dad buu isoo diray kadib waa ii hinjiray waa ku xirayaa. wuxuu ugu yiri anigu qolada Muqdisho farmaajo waxay dhahaan baan yeeli doonaa ogow. waxaan ku iri dadna wayna la joogeen oo markhaati amaanta waxaan ku iri sidaa oo kale maanday kuma joogo wadanka iman xiri kartid murashaxaan ahay si sharciya meesha ku joogo. kadib maalinkii la shirqoolayay waxaa la shaqeeyay iyaga Cabdulqaadir Shariif Sheekhuna ninka la dhaho baarlamaanka markaa joogay isagaa i wacay murashaxiinta oo dhan baa la wacay inuu buu yiri waan irid baabuurkayga ugu dambeeyay iridii markay baabuurtii wada galeen kaygii ganjeelka lagu xiray si uuna u gelin ganjeelkii la qabla siiyay banaanka lagu reeray. kadib Etoobiyaanka igu soo qamaamay iyagan labaska Amisom xiran bay ahaayeen. kadibna iyagaa saas ugu afduubay jibdilday ugu sameeyeen hantida iga dhaceen dukumeentida iga dhaceen 3 saacadood bay hayeen. 3 saac kadib adigu 5 saac iyo hoogaa bay ahayd markii 8 saac iyo hoogaa markay tahay ayaa Saadiq Joon baa yimid hortiisana ciidankii xaramacad oo weerarkeeda xooggiisa loo keenay baa joogay. waa la murmay oo Addis Ababa loo qaadi iyo Muqdisho loo qaadi bay ku murmeen korkayga. waxaa markii dambe sara martay Muqdisho in la soo qaado. marka dadka isoo xiray waa Amisom gooni ahaan Ethiopia weeyaan qolada secretary la dhaho. marka maxaa lagu soo xiray aan kaa dhaxgal horta intaana sababta u gudbin intaad sababta u gudbin koonfur galbeed in la afduubo doorashadeeda waxaa la ii soo xiray 77 cod oo koonfur galbeed ka iman doonto in sida la rabo loogu tasarrufo kadibna lagu guuleysto oo lagu soo laabto ayaa la ii xiray meesha dad murashaxiin lagu soo xiray meel hadee